خالد بن الوليد waxaa ciidanka ka dhex buuxiyay Abu Bakar Siddiq saxaabada raggoodii ugu magaca dheeraa oo uu kamid ahaa saxaabigan hadda aanu ka sheekaynayno Al-Bara ibn Malik Al-Ansari iyo koox fara badan oo magac weyn ku lahaa saxaabada dhexdooda ayaa dagaalkaas ku jiray haddaba ciidankii gaalada iyo ciidankii muslimiinta waxa ay ku kulmeen dhulkii la oran jiray Yamaama waqti yar markii la joogay waxa guushii ay dagaalka ku raacday ninkii nabinimada sheegtay ee beenalaha ahaa ee la oran jiray Musaylima mar labaad ayaa muslimiintii dagaalka lagu soo jibiyay ilaa heer waxay gaareen nimankii taageerayay Musaylima ay hogaamiyihii muslimiinta xaaskiisii inay dilaan ay khatar geliyeen muslimiintu waxay dareemeen khatar weyn inay ku soo fool leedahay haddii mar saddexaad Musaylima uu dagaalka muslimiinta ku jabiyo waxay dareemeen ninkani haddii mar saddexaad uu guulaysto inuu muslimiinta dhan uu gumaysi gelinayo cagta hoosteedana uu ku riixayo Khalid ibn al-Walid ayaa ciidankiisii isku shaandheeyay nidaam cusub ayuuna u sameeyay ciidankii Khalid wuxuu kala soocay dadkii muhaajiriinta ahaa ee ansaartii wuxuu kala soocay dadkii baadiyaha ka soo dagaal tagay iyo dadkii magaalada ka soo dagaal tagay qolaba dhinac ayuu u kala wareejiyay Khalid ibn al-Walid wuxuu yiri bal meesha jabku nooga yimaado ayaan garanahay bal inuu jabku ka imaanayo dhinaca ansaarta iyo inuu jabku ka imaanayo dhinaca muhaajiriinta inuu jabku nooga imaanayo dadka baadiyaha ka soo dagaal tagay inuu jabku nooga imaanayo dadka magaalada ka soo dagaal tagay bal horta dibku meeshu nooga imaanayo fulaynimada haddaan arkayaa buu yiri hal kala baxo ciidanka dagaalkii sidaas ayaa lagu galay waxaan halka dhex maray Musaylima iyo muslimiintii dagaal aad u qaraar oo labada dhinacba ay ku hoobteen waxay muujiyeen ciidamadii Musaylima uu hogaaminayay geesinimo xad dhaaf leh muslimiintuna waxay muujiyeen waxyaaro khawaariqul caadada oo muslimiinta hore aan looga baran oo geesinimo ah tusaalooyin shakhsiyaadkii caanka ahaa oo dagaalka magaca weyn ku yeeshay geesinimada xad dhaafka ahna muujiyay waxa kamid ahaa saxaabigii la oran jiray Thabit ibn Qays ayaa kamid ahaa Thabit ibn Qays wuxuu sameeyay karfan ayuu isku duuduubay godna wuu qotay markaasuu godkii ilaa jilbaha ilaa shanshada intuu godkii ku ritay ayuu halka hubkiisa la fariistay oo wuxuu yiri hadii lay dilana karfantaydina waan wataa hadii godkan hoosteeda ka qodanna qabri baan ka dhigana waaba ku seexan baan ku dhici buu yiri hadii lay dilo halkaas ayuu sidoo uga dagaalamayay Thabit ibn Qays ayaa halkaas lagu dilay Thabit waxa kamid ah shakhsiyaadkii caanka ahaa ee dagaalka guusha weyn ka soo hooyay iyo geesinimada xad dhaafkana muujiyay Umar ibn al-Khattab walaalkii oo la oran jiray Zayd ibn al-Khattab Zayd ibn al-Khattab muslimiinta ayuu ku dhex dhawaaqay markaasuu yiri dadow gowsaha la isku qabto cadawgiina hore ugu sii durka hore ugu sii socda ayuu ku yiri wuxuu yiri dadkanow wallahi inaanan hadlaynin eraygan ka bacdi ilaa Musaylima laga jabiyo Zayd ibn al-Khattab ayaa cadawgii gaalada ku rogaal celiyay ilaa asagana laga dilay oo meeshii uu ku shahiidoobay waxa kamid ah ragga geesinimada muujiyay ninkii la oran jiray Salim oo Abi Hudayfa adoonkiisa ahaa Salim wuxuu qaatay calankii muhaajiriinta dadana waxay ku yiraahdeen amad jabtaa oo naxdaa Salimow wuxuu yiri markaas inna la nakhsha an nu'ta min qibalik ayay ku yiraahdeen Salimow waxaan ka baqaynaa inaad cabsato oo jabku dhinacaaga nooga yimaado Salim ayaa ku jawaabay oo yiri haddii dhinacayga laydinkaga kin yimaado nin quraan xambaarsan oo baas leh ayaan baahay buu yiri haddii jabku dhinacayga ka yimaado war anigoo quraanka aqaana sidee gaala ii jabinaysaa ayuu yiri Salim laakiin shakhsiyaadkan caamka ah markii la hordhigo geesinimadii uu muujiyay Bara ibn Malik al-Ansari waxaasi waxba noqon maayaan Khalid ibn al-Walid markuu arkay dagaalku inuu aad u sii qaraaraaday ayuu markaa wuxuu la hadlay Bara wuxuu yiri Baraaw bal dadka wacdi oo ku tirtirsi inay dadku ay aad u dagaalamaan Bara ayaa qoomkii uu ka dhashay la hadlay oo wuxuu yiri axad adinkeedin kamid ah yuusan ku fekerin in magaaladii dib ugu laabto magaala ma jirto meeshan waxaan hor yaalla ilaahay ridihiisa inaanu raadino iyo janno bis
walla inaan guryo dib loogu laabanaynin ninka nabinimada sheegtay ilaa laga jebiyo ayuu yidhi baraa safkii gaalada ayuu isku dhex maqiiqay waan aad ayaana loo riixay nimankii gaalada ahaa ee musaylima uu hogaaminayay waxayna dib ugu gurteen musaylima beertii la odhan jiray xadiiqatulmowt ayay ku aruureen gaaladii beertaas ayayna dhufays ka galeen albaab weyn oo derbi ahoo beertu ay lahaydna albaabkiina way isku xidheen halkaasina fallaaro la fuulfuuleen derbiyadii beerta markaas ayaa baraa ibnu maalik alansaari wuxuu yidhi war nimankani beertii ayay naga galeen albaabkiina way soo xirteene gaashaan ayaan ku fadhiisanahayaa buu yidhi gaalada dhexdooda igu tuura derbiga intay iga tuurtaan gaalada dhex bartankooda igu tuura buu yidhi laba mid ayay noqon buu yidhi inay idilaan iyo inaan albaabka idinka furo si aad beerta usoo gashaan oo meesha ugu laysaan ha laygu dhex tuura buu yidhi gaalada dhexdooda ilbiriqsi ayaa baraa ibnu maalik wuxuu ku fadhiistay gaashaankii nin aad u caato badanna wuu ahaa gaashaankii inta sidaa loogu qabtay ayaa lagu tuuray beertii gaaladu ay isku xirtay dhexdoodaa shab lagu siiyey baraa markii uu ku soo dhex dhacay gaaladii waxay huwiyeen baraa seef iyo dhagxaan iyo fallaar ayay huwiyeen isaguna seeftiisii ayuu isticmaalay oo wixii dhinaciisa ka yimaadaba oo soo aadaba seefta ayuu qudha uga jaraa ilaa uu 10 ka dilay gaaladii baraa isagana waxaa la gaarsiiyey dhaawac aad u fara badnaa 80 iyo dhowr meelood ayaa laga dhaawacay baraa wuxuuna si xoog leh uu ku furay albaabkii beerta oo gaalada u xirnaa ayuu ballaqay halkaas ayaa dadkii muslimiinta ahaa si waxay ugu yimaadeen xowli ah ayay ugu soo daateen beertii gudahoodii markii gaaladii beerta loo soo dhex galay ayaa waxaa laga laayay gaaladii ku dhowaad 20,000 oo shakhsi ayaa meeshaa looga dilay nimankii gaalada ahaa muslimiintii waxay raadiyeen ninkii gaalada hogaaminayay nabinimadana sheegtay ee la odhan jiray baraa ibnu maalik ninkii la odhan jiray musaylima alkadaab ee nabinimada sheegtay ayay raadiyeen musaylima halkaas ayaa isagana lagu khaarijiyey oo eber looga dhigay waa la khaarijiyey isagana waa la dilay dagaalkaas qaraar ayuu ku dhintay ninkii nabinimada sheegtay haddaba saxaabigeennan walaalayaal baraa ibnu maalik alansaari oo 80 iyo dhowr meelood ka dhaawacan ayaa meeshii laga qaaday oo kor loo qaaday si loo soo daaweeyo hogaamiyihii muslimiinta khaalid ibnu lwaliid ayaa hal bil dul taagnaa isagoo daaweynayay maadaama ninkaasi uu yahay ninkii guusha soo hooyey baraa markii bil la daaweynayay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ayuu u soo dejiyey baraa ibnu maalik alansaari ayaa muddo dheer waxa uu haminayey rajaynayana inuu maaragtaahay shahiidnimo rabbi uu gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala oo uu shahiid noqdo ayuu muddo dheer uu rajaynayey dagaalba dagaalka ka dambeeya ayuu maaragtaahay galaa si uu maaragtaahay shahiidnimo uu u helo ilaa wuxuu galay dagaalkii ka dhacay magaaladii la odhan jiray tustur oo ka mid ahaa bilaadu faris nimankii farisiinta ee gaalada ahaa dagaal qaraar oo uu la galay saxaabigeennan baraa ibnu maalik alansaari ayaa gaaladaasi waxay sameeyeen derbiyo ayay intay ku aruureen ayay derbigii waxay ka soo laalaadiyeen silsilado ay dab ku kululeeyeen oo ay ula jeedaan qofkii derbiga soo ful is yidhaahaba silsiladaasi ha qabsato oo adinkuna sidii ceel oo kale ugu soo shuba si aad beerta derbiga usoo gashataan ood u dishaan haddaba anas ibnu maalik oo walaalkii ah baraa ayaa wuxuu is yidhi isagu bal waxaad samaysaa buu is yidhi nimankan beerta u gal oo derbiga inta fuushid derbiga ka bood buu yidhi si gaalada aad u laysid birtii baa ku dhegtay derbiga korkiisa saarayd gacantii ayay uga dhegtay walaalkii oo baraa ayaa soo booday oo silsiladii ka bixi ayuu is yidhi walaalkii ka bixi markuu islahaa isagiiay silsiladii ku dhegtay baraa gacantiisii oo qiiqaysa ayaa la arkay walaalkiis ayuu meeshii ka soo badbaadiyey isaguna dhulkii ayuu ku soo dhacay baraa ibnu maalik isagoo aad u dhaawacan baraa ayuu wuxuu rabbi weydiistay inuu rabbi ku irsaaqo
shahiidnimo ilaahayna ducadiisii ugu aqbalay oo halkaas ayuu ku geeriyooday oo uu ku shahiidoobay baraa ibnu malik waa dagaalkii ka dhacay magaalada tustor waxaanu leenahay ilaahay ha nuuriyo wejiga baraa ibnu malik jannada dhexdeeda ilaahay ha ugu nuuriyo ishiisana allaha ugu qaboojiyo nebi moxamed suxbadiisii sala allahu wasalam calayhi rabbina ha ka raali noqdo qabrigiisana allaha u nuuriyo haddaba halkaas ayaa waxaa noogu dhammaaday walaalayaal taariikh nololeedkii baraa ibnu malik al ansaari qofkii doonaya faahfaahin intaa dheer faahfaahin intaa ka badan inuu ka ogaado taariikh nololeedka baraa wuxuu kala xidhiiri karaa kutubtan soo socota wuxuu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho alisaaba fii tamyiisi saxaaba wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho alistiicaab libni cabdilbar wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa kitaabkan la yidhaaho alطabaqaat alkubra wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho taariikhu dabari wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho alkaamil fi taariikh wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa asiiratu nabawiyatu libni hishaam wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa taarikh nololeedka baraa kitaabkan la yidhaaho xayaatu الصaxaaba wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa qaadatu fatxi faris wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa taarikh nololeedka baraa kitaabkan la yidhaaho suwar min xayaati الصaxaaba wuxuu kaluu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho siyar aclaam annubala haddaba waxaanu gelaynaa walaalayaal gabadhan saxaabiyadda ah ee magaceeda la yidhaaho umu salama gabadhan umu salama ah bal taarikh nololeedkii iyo halgankii ay u soo martay faafinta diinta islaamka ayaanu wax ka qaadanaynaa gabadhan umu salame la yidhaha aabbaheed waxau ahaa nin aad deeqsi u ah ilaa carabtu ay ku naynaasaan aabbaheed zaadu raakib ayay dhihi jireen musaafirka sahaydiisii ayaa aabbaheed lagu naynaasi jiray maxaa yeelay waxaa sidaa loo leeyahay dadku markii ay la safraan gabadhan aabbaheed dadku sahay sooma qaadan jirin waxayna isku hadlay jireen gabadhan aabbaheed oo musaafiriinta dhan isagu cuntada ka bixin jiray umu salama gabadhan la yidhaaho ninkeedii ayaa waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilasad wuxuuna ka mid ahaa ninkeedu 10kii jannada loogu bishaareeyey iyaga oo dunidan ku dul socda maya waxa uu ka mid ahaa ayaan leeyahay iga raalli ahaada 10kii nin oo islaamka ugu soo horreeyey ayuu ku jiray cabdullaahi ibnu cabdilasad oo gabadhan ninkeedii ah ka mid maahayn 10kii jannada loogu bishaareeyey laakiin wuxuu ka mid ahaa 10kii ugu soo hormaray diinta islaamka maxaa yeelay islaamnimada waxaa ninkeeda uga soo horreeyey abubakar asidiiq iyo koox fara ku tiraysa gabadhan magaceeda dhabta ah ayaa la yidhaha hinda laakiin waxaa kunyo ahaan loogu magac daray umu salama kunyadaas ayaana hadda loo yaqaanaa gabadha umu salama waxay la soo islaamtay iyada iyo ninkeedii ayaa hal mar soo wada islaamay waxayna ka mid ahayd gabadhani gabdhihii ugu soo horreeyey fahamka islaamka markii umu salama ay soo islaamtay iyada iyo ninkeedaba gaaladii reer quraysh waxay ku soo yaaciyeen umu salama iyo ninkeediiba cadaab iyo jirdil ayaa loo geystay gabadhan iyo ninkeedaba gabadhan umu salama ah iyo ninkeedii markii si xawli ah loo cadaabay cadaabkiina ay u adkaysan waayeen oo gaaladu ay jirdil ku samaynahayaan ayaa wuxuu nabigu amar ku bixiyey sala allahu wasalam calayhi inay xabashada u haajiraan xabashada inay u haajiraan ayuu maaragtaahay amar uu ku siiyey nabigu calayhi salaatu wassalaam haddaba gabadhan umu salama iyo ninkeedii labaduba waxay u haajireen dhul aysan garanaynin afka looga hadlayo cimiladiisa iyo hawadiisa iyo jawigiisa iyo dabeecadiisana aysan fahmaynin ayay u soo haajireen ayagoo intaa ka doorbiday iimaankii ha badbaado maxaa yeelay dunidan waxa la haysto waxa ugu qaalisan iimaanka mar haddii kaasi dhaawac uu kaa gaaro waxa weeye waxa ama uu kaa nusqaamaba waxaad noqon qof nolosha ay nooshahay ay tahay nolol aan wax qiimo ah ku fadhinin